iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda waxa la joojiyay shaqadii macdan qodista ee shirkadu ay ka waday Agabar laga bilaabo taariikhda maanta 3 Juulaay waxaana qalabka shirkadda u yaala godka wax laga qodo ee 3 cagafa loo qaadi doonaa Gabiile in cidda qura ee hub ku haysan karta degmada Agabar ay tahay ciidamada dawladda ee kala duwan waxaana reeban cid aan ka tirsaneen ciidamada dawladda oo hub ku haysta magaalada Agabar xukuumadda iyo odayaashu waxay ku heshiiyeen in la aaso labadii marxuum ee ku geeriyooday dhacdadaasi shanta qodob ee wasiirku akhriyay ayaan ku heshiinay arrin kasta oo timaada waxay u baahan tahay go'aan iyo xal in laga qaato cid kasta dhib ha ku noqoto dhibaato kasta ha dhacdo waxa laga maarmaanaa inteena wax galkay inaan go'aan qaadano oo aan go'aamada ku xalino waxaan halkan ku akhriyo doonaa qodobo ka kooban 5 qodob oo aan isla qaadanay odayaasha deegaanka iyo salaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo qoysaska ay ka baxeen labada marxuum oo insha Allah u noqon doona dhaymo dhacdada ka dhacday Agabar qodobka koobaad waxa la isla qaatay in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaadato khasaarihii nafeed ee ka dhacay degmada Agabar isla markaana ay bixiso diyada labada marxuum qodobka labaad iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda waxa la joojiyay shaqadii macdan qodista ee shirkadu ay ka waday Agabar laga bilaabo taariikhda maanta 3 Juulaay waxaana qalabka shirkadda u yaala godka wax laga qodo ee 3 cagafa loo qaadi doonaa Gabiile 3 inaanay ciidana awood u lahayn inay sharciga gacmaheeda ku qaadato cidii qabta cabasho ama tabasho ee dambe waxay u mari doontaa hay'adaha dawladda ee u xilsaaran